kulanti waxaan wanaagsan idilkiinba akhyaartaanu hawada ka wada socono meelad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena hadahan oo kale aynu isugu iman jirnay ee garwaaqso daawadayaal barnaamijkeenan oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan ama aad kala socotaan TV-ga qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Hargeysa barnaamijkeenan oo aalaba aynu kaga hadalno arrimo kala duwan haday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhanka arrimaha bulshada intaba ayaa waxaan ku soo martiqaadnaa ciidaanu leenahay dadka waxa ay ku kordhin karaan macluumaad isla markaasi ay u baahan yihiin barnaamijkeena toddobaadkani waxa inagu martiya Nuura Axmed Waris oo kamid ah hablaha qurbo jooga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka North America gaar ahaan magaalada Washington. Nuuray hadii aad daawadayaasheena barnaamijka la socda garwaaqso hadiiba aad isbarto Nuura Axmed Waris waa qof nooceeya magacayga waxa la yiraahdaa Nuura Axmed Waris waxaan ahay qurbo jooga reer Soomaaliland markii horena background-kaygu wuxuu ahaa Hargeysa ku dhashay ku korqay xaafadda New Hargeysa iskuulkayga hoose dhexe waxaan ka baxay iskuulka Rees macallin waxa la yiraahdaa malcamadiina oo jaamac ayaan ka qaatay wixii inta ka dambeeyay dalka dibadiisa ayaan deganaa gaar ahaan Mareykan baan deganaa Virginia aan deganahay waxbarashadeeda intii dambina Mareykanka ayaan ku dhamaystay marka hadda waxaan ahay dadka qurbo jooga ee wadankii u baholyoobay ee wadanka ku soo noqda Nuura maadaama aynu maanta ka hadlayno doorka siyaasadda ay ku leeyihiin haweenka reer Soomaaliland ama qurbaha joogan ama maxanada gudaha joogan maadaama ka mid tahay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye gudoomiyana aad ka tahay 12 maxanada gobol oo bariga Mareykanka ah xaruntaaduna ay tahay Washington bal hadii aad dadka la wadaagto xog ku saabsan maxaan raahdaa hawshaada gudoomiyanimo iyo waliba maxaan raahdaa hawshaad u hayso xisbiga bismillaahirrahmaanirrahiim nimcooy waad mahadsan tahay su'aashaadii haddaan soo noqdo oo faahfaahsan oo jecel si koobanna inaan uga soo jawaabo doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliland ayay ahayd su'aashu wallaahi anigu waxaan qabaa inay haweenku ay ku leeyihiin doorka ugu fiican waxa lagu maanta lagu tiirsan yahay Soomaaliland ay ku tiirsan tahay waa dumarka reer Soomaaliland haday dalka joogan iyo haday dibadda joogan laakiin dumarka qurbaha way ka sii duwan tahay markaad hooyo tahay haddana tahay qof qurbo jooga oo wadaniya quruxda maanta Soomaaliland ka muuqata iyo dhismaha la dhisay iyo halkay gaadhay hortaan waxaan qabaa in waxaan libintaasiinayaan haweenka reer Soomaaliland haday noqoto dhinaca dhaqaalaha haday noqoto dhinaca siyaasadda iyo haday noqoto hooyo ubad soo saaraysa oo caruur iskuul ka saaraysa intaba hablaha Soomaaliland way ka soo baxeen kaalintoodii su'aasha labaad ee kale ku dhex jirtay su'aashu waxay ahayd xisbiga wadani baad ka tirsanaan jirtay xisbiga wadani waan ka tirsanaan jiray waxaan ahaa gudoomiye gobolada ah Washington Virginia Maryland waxaan hayay xilka muddo sanad iyo bara waxaan ahaa gudoomiye ugu horeeyay ee dhinaca East Coast-ka loo magacaabo waqti badan baa iga galay scratch baan ka bilaabay oo cid meesha iga sii horeysay oo kala wareegay ma jirin waxaan ka bilaabay halkii ugu dambeysay meel fiicanna waan soo gaarsiiyay ilaa waftigii ugu ballaarnaa ee xisbiga wadani markuu yimi Mareykan shaqooyinkii ugu badnaa baan qabanay waxaan ka shaqeynay fundraising-kii meelo badan baan wax ka qabanay laba gudoomiye oo istul saaran waan ahaa anigu saddexda gobolna gudoomiyaan u ahaa
haddana same time waxaan ahaa guddoomiyaha anshax marinta haddii xisbiga wax dhibaato ka kala dhex dhacaan dhexgeli jirtay oo dadka la kala hadli jirtay ayaan ka mid ahaa. waxaan ka mid ahaa also golihii dhexe ee xisbiga wadani ee gobolka saaxil in aan ka mid noqday. waxyaabahaasoo dhan dee waa wixii backgroundkayga weeye iyo wixii aan soo qabtay. maanta waxaan ka mid ahay xisbi xaakinka xisbiga kulmiye. aad baan ugu faraxsanahay inaan xisbigaa ka mid noqdo oo ah xisbi ballaadhan, xisbi dadka reer Somaliland oo dhan ay harsanayaan oo noqday generation to generation. aad baan ugu faraxsanahay. waliba mar time-ka aan kulmiye kusoo hagaagay waxaa aad ii sii xiiso geliyey madaxweynihii jamhuuriyadda Somaliland oo ku dhawaaqay inaanu musharax ahayn oo xilkii musharaxnimada baneeyay oo nin mujaahid oo musabbixi u baneeyay oo aan jecelahay maadaama uu madaxweynuhu xilkaa baneeyay inaan ka shaqeeyo xisbigu siduu u soo noqon lahaa, siduu talada waddanka u sii hayn lahaa. waad ogtihiin oo dee waddan iska Afrikaan inuu nahay, madaxweyne xilkiisii ka fadhiista oo qof kale soo dhiga weli lama arag. waa first time ay ka dhacdo. oo waxyaabaha kulmiyaad ku sii jeclaanayso isu tanaasulka, ismaqalka iyo waxyaabaha kale aad jeclaysanaysa ka mid tahay. marka xisbiguna inuu guuleystaan jecela. nuura, sida aad sheegtay xisbiga wadani xilal baad ka soo qabatay muddana waad la shaqaynaysay. haddii aad isbarbar dhigto xisbigaad maanta ka tirsan tahay ee kulmiye iyo xisbiga maxaan dhadaa xisbigii mucaaridka ahaa ee wadani, xagga siyaasadda iyo shuruucda iyo qaab dhismeedka maxay ku kala duwanaan karaa baad u malaynaysaa mar haddaad kana la soo shaqaysay kana aad imika ka mid tahay? aad baad u mahadsan tahay nimcoy. su-aashaasi waa su-aal fiican. wax badan bay ku kala duwan yihiin. wadani wuxuu jiraa muddo 3 sannadood hadda sidaan qiyaasta ku hayo. xisbigan aan galay hadda wuu ka ballaadhan yahay, wuu ka baaxad weyn yahay. waa xisbi dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka shaqeeya. dee taladii waddankana gacanta ku haya. marka anigu isma barbar dhigi karo labadaa xisbi. nuura, waxaad ka timid qurbaad ka timid dabcan hooyaa tahay. اللهم صل على محمد. سياسدي dhinac wad ka shaqo tagaysa, dhinac adigan siyaasadii ku jira ee xisbiyada ka taageeraya. bal hadii aad sharaxaad kooban naga siiso waqti intee lag bad u heli kartaa inaad u kaambayn garayso adigoo hooyo ah oo qurbo jooga oo dee laga yaabo hawlo fara badan xagga nolosha inay ku kala duwan yihiin marka dalka gudihiisa joogto iyo marka dalka dibadiisa aad joogto? waad mahadsantahay nimcoy. walaal waxay ku kala duwan yihiin qofku qurbaha markuu joogo ee uu hooyo yahay oo xisbi ka mid yahay. xisbiyadu inta badan dadka qurbo jooga contribution bay bixiyaan oo dee dhaqaale waa inaad ka qayb qaadataa. dadka gudaha joogana waxaa laga rabaa cod inay food gareeyaan oo cod laga helo. dadka dibaddana dhaqaalaa laga helaa. markaa kulley dhinacii dhaqaalaha waxaan u malaynayaa inay haweenka reer Somaliland aad uga qayb qaateen. nuura, sanado fara badan baad ka maqnayd maxaan idhaahdaa dalka, walow aad soo yara laablaabaneysay. maanta xaaladda dalka uu marayo markaad eegto dhanka siyaasadda maxaan idhaahdaa dhanka horumarka, sanadadii hore iyo sanadkan maxaa ay ku kala duwan yihiin amba guud ahaanba 6 sano ugu dambeysay isbedel nooceeya ayaad ka dareemaysay? isbedel waliba aniga aad ii qiimeeyay qaayaba aad aan u jeclaystay ayaan waddanka ka dareemayaa. gaar ahaan gobolladana waan tegay ilaa Gabiley, Boorame, gobolka Saaxil. wax badan bay isbedelay. waxa isbedelo ugu horeeya horta dhaqaalihii waddanka kor u kacay. maanta quruxda iyo guryaha la dhisay iyo bildinada la dhisay iyo dhaqaaluhu halku marayo aad baan ugu faraxsanahay. waxaad arkaysaa dadkii reer Somaliland oo dibadaha u dhoofaya, China tagaya, Turkiga tagaya, meelo badan business ka keenaya. oo dadka Berbera aragto waa very busy. intaasoo markab baa ku xidhan, baabuur bay sidaan, furniture bay sidaan, raashin bay sidaan. markaa dhaqaalaha waddanku kor ayuu u kacay 100%. taasna waxa keenay intii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu hayay xilka laga bilaabo 2010kii markuu xilka qabtay
wax badan baa isbedelay waxbarashadii waddanka isbedelay waxa isbedelay technology xitaa waxaad arkaysaa dadkii oo wada high technology wax badan baa isbedelay anigu waxyaabo badan oo ku farxo ayaan u arkay nabadgelyadu meel fiican bay maraysaa dhaqaalaha waddanku meel fiican buu marayaa marka meeshii ugu fiicnad haddaynu taagana way nuura waxaan idhahdaa somalilan hadda waxa weeyaan way 26 jirsatay dabcan waxaad ahayd dhalinyartii hore ee wax ku soo baratay waagii hore intaan laga qaxin maxaan idhahdaa dalka ama burburku aanu ka dhicin dawladdii hore siyaad bare haddii aad isbarbar dhigto waqtigaasi hablaha ama waxbarasho ahaato dee siyaasad waqtigaa mabay ku jirin oo lamaba haybsanayninba dhanka waxbarashada iyo maanta dadaalka waxaynu aragnaa in hablihii ay dhinac wax ka baranayaan iyagoo oo hooyooyina waxaad arkaysaa marka qaarkood iyagoo qalinjabintii caruurtoodii runtii soo qaatay oo intaa ay 3 sano ay ku jirtay jaamacadda ama 3 sano iyo barka ay ku jirtay jaamacadda in ay de hooyadii ay de caruur yar yeelatay iyadoo dhinacna waxbarashadii ka wada sawirka noocaasiya iyo waqtigii hore haddii aad isbarbar dhigto inuu dadka xasuusino waad mahadsantahay nimco waraysiga xisaab badan leh iyo su'aalaha quruxda badan waad ku mahadsantahay walaalo waxaan markaad isbarbar dhigto wallaahi maanta aynu ka fiicanahay berigaa anigu markii la qaxay baan waddanka ka tegey ilaa intaasoo dhan waan ka maqnaa waxaan waqtiyadii ugu dambeeyey markii ilaahay u naxariistay maxamed ibraahim xaaji cigaal dhintay 2000kii markaasaan bilaabay waddanka inaan ku soo noqdo oon aad u imi dee maantaynu xagga dhaqaalaha ka fiicannahay maantaynu ka fiicannahay xagga bulshada xitaa dhallinyaradeennu maskaxiyan markaad aragto maantay dhisan yihiin intaasoo jaamacadood baynu haysanaa intaasoo college baynu haysanaa intaasoo maalin walba qalin jabin baanu tagnaa xaflad baa laga qayb galaa physically haddaynu dhisannahay ayaan anigu u arkaa nuura dalku waxaa imika kusoo foolle inay doorashooyin galo gaar ahaana doorashadii madaxtooyada xisbiga aad ka tirsan tahay ee kulmiye rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in khaasatan goboladaas adigu aduu qaabilsantaad guddoomiyaha u tahay taageero intee leeg inuu ka heli karo shacbiyadda reer somalilan ee halkaasi degan waad mahadsantahay nimcoy anigu 11 gobol oo maraykanka ka mid ah ayaan guddoomiye ka ahay shacabka reer somalilan ee waliba maraykanka ku dhaqan waa shacab aad u jecel waddanka oo wadaninimadu ay ku dheehan tahay waxaan ka qabaa fikirkan ka qabaa waxay tahay inuu kulmiye soo baxaya baan ogahay inuu kulmiye mar labaad waddanka qabsanayaan dareemaya oo dareenkayga ku jira iyo de himilada kamida maadaama iminka wax badan uu madaxweynuhu qabtay inta ka dambeysana inuu dhammaystirayo ninka mujaahidka musharax muuse biixi cabdi inuu soo baxayo oo ku talada waddanka qabanayana dareenkayga way ku jirtaa tartankuna dee uu furan yahay oo wax dhibaato ama la xisbiyada kale nuuray waxaynu aragnaa in bulshada dumarka codeeya markaynu eegno dhanka bulshada iyagu codaysa marka doorashooyinka u soo baxda inay u badan yihiin dumarku markaad sii eegtana aanay siday u codeeyeen oo kale aanay uga dhex muuqan dhanka maxaan idhaahdaa qabashada xilalka dowladnimo taasi ma isleedahay dawladda soo socota haddii aad ku guulaysataan idinkoo xisbi ka kulmiye ahaan waxba iska bedeli doono oo numberskii waa la kordhin doonaa ama wasiir ha ahaato ama maxaan idhahdaa wasiiro ku-xigeen ha ahaato kaalintaasi su-aashii ugu fiicnaadaan xiiseynaya baad i weydiisay waa run weeye oo inaynu dumarkeenna horta dee taageernayo kolley maadaama iyagu codaynayaan oo iyagu caruurtoodii xitaa keenayaan ilmaha dhashada odhanaysaa maanta waa foodkiiyo soo food gareen maalin oo dhanna bacadkaad u taagan tahay maalin oo dhanna aad ka fikirayso talo yaa soo bixi yaad usoo food garayn ay ka muuqdaan dowladda la dhisaayo
oo ka qayb galaan oo wasiirada waliba loo kordhiyo dumarka wasiirka xigeenada dhiijiyada agaasimaha waxyaabaha aad in loo kordhiyo aad bay u fiican tahay dumarkii time baa ka galay tacab baa ka galay bulshada reer Somaliland way arkaysaa marka xisbiga kulmiye hadduu guuleysto oo uu qabto mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaan jecelahay inaan mujaahid ugu yeedho anigu Muuse dadka wuu iga dhow yahay aniga wuu iga duwan yahay waqtigii aan yaraa ee la qaxayay wuxuu ahaa ninkii magaalada naga saaray hooyaday 11 caruur ay dhashay 11ka isagana hogaamiyay iyo dadkii xaafadda iyadoo madaafiicna la dhaqay madaafiic badan nagu dhacayso ilaa geedeeble ciidankii uu watay ayaa nageeyay uu naga saaray haddana wuxuu nageeyay dulcad marka Muuse aniga dadka ilama mid aha maanta inaan xisbigiisa ka mid noqdo oo u food gareeyo oo ka shaqeeyo aad baan ugu faraxsanahay ka xisbi ahaan in uu maxaan idhaahdaa qorshaha ma ku jirtaa in uu kaalin fiican dumarka siin doono oo uu kordhin doono maanta meel fiican bay maraysaa inuu u kordhin doono oo uu haddii wasiiro noqoto haddii agaasimayaal noqoto haddii ku xigeenno noqoto taasi ma ku rajo weyntihiin oo ma muuqato rajadaas nimcay way muuqataa oo inaan la xisaabtanaa oo meel codkaygu isugu geynaa oo aanu ogaanaa kootada dumarka u xidhan marka taasuna waa su'aal muhiim ah waad ku maadsantahay inaad weydiisay nuuray waxaynu soo gaadhnay guntii gabagabadii barnaamijkeena garwaaqso toddobaadkan ood nagu martay ahayd ma jirtaa fariin aad u dirayso guud ahaanba shacabka reer Somaliland haddii ay noqoto taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo gobolada aad ka timid iyo gudahaba iyo waxaad jeceshahay dardaarankii ama maxaa dhahdaa aad u gudbin lahayd shacabka reer Somaliland wad mahadsantahay nimco su'aashaas haday gabagaba tahay su'aashan u gudbinaya shacabka reer Somaliland waxay tahay iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee aan ka mid ka ahay ee waliba aan ka mid ahay saraakiisha North America inaan u sheego oo aan fahansiiyo in shaqo badan laynoo baahan yahay in food looga baahan yahay dadka qurba joog dhaqaale looga baahan yahay dadka qurba jooga ah dadka gudahana cod looga baahan yahay waxaan aad u jecelahay inay fundraising-ka ka qayb qaataan oo xisbiga ku taageeraan foodkana gudaha ayaa laga helayaa laakiin annagu waxaan wadaan u nahay dee qurba joog na looga baahan yahay waa dhaqaale iyo contribution soo xisbiga dee uu muxuu ahaa u soo baxo dhammaan madaxda xisbiga ee North America waan salaamayaa salaan qaali aan u dirayaa gudoomiyaha North America Mareykan iyo Canada Mustafa Cabdi Carte iyo dhammaan xubnaha xisbiga ee howlwadeennada ah aad baan u soo salaamayaa meel kasta joogaan fariinta labaad ee aan hadalkayga caawa ku soo gabagabeynayaa waxay tahay maadaama aan joogo telefishinkii qaranka Somaliland fariinteedu waxay tahay abaaro biyo la'aan ayaa wadanka ka taagan waliba dhinaca bariga ah marka loo eego galbeedka maaha laakiin dhinaca bariga abaaro aad u badan ayaa ka taagan dadkii xoolii baa ka dhamaaday dadkii waliba baadiyaha miyiga joogay dhibaatooyin badan baa jira marka waxaan codsanayaa wixii sadaqad la baxaya iyo wixii raba inay kaalmo sameeyaan in fundraising loo sameeyo dadka abaaraha ee waliba dhinaca bariga ay aad uga jirto marka please waxaan jecelahay in pledge la sameeyo in gudida abaaraha la soo xiriidaan daawadayaal barnaamijkeena toddobaadkan oo ay martii nuugu ahayd gudoomiye Nuura Axmed Waris oo sidaan horeba isku kiimbaray maxaan idhaahdaa iyadu inaga timid dalkaasi Mareykanka fadhigeeduna uu yahay magaalada Washington Nuuri waa gudoomiyaha 11 gobol oo bariga dalka Mareykanka ah ee xisbiga kulmiye waa taageero weyn oo runtii hiil iyo hooba u hurtay xisbigeeda waqti badanna ku bixisay sidii uu door laxaad leh uga qaadan lahaa doorashooyinka haatan inagu soo fool kale
nuura aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ee ay soo siisay barnaamijka toddobaadkan ee garwaaqso daawadayaal aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa idinka laftarkiina waqtiga aadna siiseen sida aad barnaamijka ula socoteen aad baad mahadsantihiin gaar ahaana weliba dadka sida weyn ula socda barnaamijkan garwaaqso waxa kale oo aan jecelahay inaan aad ugu mahadnaqo howlwadeennada barnaamijkeena garwaaqso alaba iyagu u hagarbaxa sidii uu idiin soo gaari lahaa waxa ugu horeeya oo aan jecelahay inaan u mahadnaqo maxamed deeq axmed cali oo dhanka farsamada iyo kamaradaha inaga haga aad baan kuugu mahadnaqaynaa maxamed deeq aniga iyo martiduba daawadayaal barnaamijka waxa isku soo dowday nimco cabdigool tan iyo intaynu barnaamijka lamida ku kulmayno toddobaadka kan xiga waxaanu idinku dhaafaynaa dhammaanta iyo dhammaantiin sidaas iyo nabad geliyo Sociedade,